salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wararkaannu idiin hayno waxaa ka mid ah markab shixnad 5 milyan oo dollar kala goostay ganacsato Soomaaliyeed, ruushka oo saldhig militari ka furanaya Somaliland gaar ahaan xeebaha Saylac, dhakhaatiir ku dhoofay baasaboorka Somaliland oo lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. aan ku bilownaa ruushka ayaa la filayaa inuu heshiis militari la saxiixdo Somaliland, kaasi oo saldhig militari kaga sameysanayo xeebaha Saylac kadib markii uu burburay heshiis uu saldhigaasi kaga sameysan lahaa dalka Suudaan ayaa shaacisay salaasadii hore inay dib u eegis ku sameynayso heshiiskii saldhiga badda ee ruushka, midaasi oo fursad cusub siin karta Somaliland sida lagu sheegay warbixin ay baahisay mareegta The Modern Diplomacy. warbixinta The Modern Diplomacy ayaa waxaa lagu lafaguray isbeddel ku yimid qorshihii ruushku uu Suudaan kaga dhisanayay saldhig ciidamo badeed kadib madmadow soo kala dhex galay labada dhinac, taasi oo keentay in Suudaan ay shaaciso inay dib u eegis ku sameynayso heshiiskaasi. Suudaan ayaa qirtay inay dib u eegis ku sameynayso heshiiskii sanadkii hore ee uu ruushku kaga sameysan lahaa Suudaan saldhig dhinaca badda ah, lagana yaabo in meesha laga saaro heshiiskaasi. hoggaanka guud ee ciidamada talada haya Maxamed Cismaan Xuseen ayaa shaaciyay arrinkaasi, waxaanu yidhi isagoo warbaahinta la hadlaya, dukumentiyada heshiiska qaarkood ayaa halis toos u soo jiidaya Suudaan. waxa uu sheegay heshiiskaasi in aanay weli sharci dejintu ansixinin, isla markaasina aanu heshiisku weli haysanin sharci uu ku howlgalo. waxaanu beeniyey in go'aanka Suudaan uu ku qotomo raaligelinta Maraykanka oo ay si weyn isu hayaan ruushka. warbixinta mareegta ayaa waxaa diiradda lagu saaray suurtagalnimada sarreysa ee ruushku uu qorshihiisa Suudaan ugu wareejin doono Somaliland oo ah dal halgan ugu jira sidii uu beesha caalamka uga heli lahaa aqoonsi caalami ah. haddiiba qorshaha ruushka ee Suudaan guuldarreysto, waxaa hubaal ah inuu ruushku ku qasban yahay inuu aag bedesho weliba si dhaqso ah. waxaa aad loo odorasayaa in ruushku daraaseeyo faa'iidada iyo khasaaraha in uu saldhig la mid ah ka uu ka dhisan lahaa Suudaan ka dhisto Somaliland. horaantii sanadkii 2018 ayaa warar badan oo la isla dhexmarayay tilmaamayeen in ruushku damacsan yahay in uu saldhig ka dhisto magaalo xeebeedka Saylac, ayaa warbixintaasi lagu yidhi. sidoo kale waxaa warbixintaasi xustay sida aanay xilligan suurtagal u ahayn wadamada gobolka ee Djibouti ay ugu horeyso in ruushku uu ka sameysto saldhig militari, maadaama oo ay Djibouti martigeliso saldhigyo waaweyn oo caalami ah oo ay iska soo horjeedaan siyaasadda ruushka. ugu dambeyntiina waxaa lagu sheegay sida ruushku dano siyaasadeed oo badan uga leeyahay Itoobiya, Somalilandna ay u tahay wadamada ugu wanaagsan ee ku xidhaysa Itoobiya uguna istiraatiijisan gobolka. markab u rarnaa ganacsato reer Somaliland ah oo muddooyinkii u dambeeyey ku xidhnaa dekedda magaalada Berbera ee Somaliland ayaa dib uga goostay dekedda, sida ay sheegayaan wararka Berbera laga helayo. saraakiil ka tirsan dekedda oo warbaahinta qaar xogta u soo dusiyey magacoodana ka gaabsaday ayaa sheegay in markabkaas uu dib uga goostay dekedda Berbera iyada oo aan laga dejinin shixnadii saarnayd oo ay lahaayeen ganacsato reer Somaliland ah. sidoo kale waxay sheegayaan in uu jiro khilaaf kooban oo soo kala dhex galay ninkii wakiilka u ahaa markabka oo isagu degan dalka Imaaraadka Carabta iyo howlwadeenadii markabka. ayaa sidii shixnad lagu qiyaasay ku dhowaad 5 milyan oo dollar. goosashada markabka ayaa ku soo aadaysa xilli ay maalmo kooban inaga xigaan ciidda Carafo oo alaabta inteeda badan loogu talagalay. ganacsatada uu rarnaa markabkaasi ayaa ilaa hadda ku mashquulsan sidii ay ku heli lahaayeen markabkaasi, mana jiro ilaa hadda warar sugan oo laga helayo goobta uu u goostay markabkaasi iyo inay jirto deked kale oo uu ku xidhay. waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho lagu xidhay 2 dhakhtar oo ka howlgelayay cisbitaalka Dr. Adna Aadan ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo transit ku ahaa Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. dhakhaatiirtan ayaa ku dhoofayay baasaboorka Somaliland, waxaana la sheegay in lagaga jeexjeexay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadibna dib loogu celiyay magaalada Hargeysa. Dr. Adna Aadan oo madax ka ah cisbitaalka ay ka howlgelayeen dhakhaatiirtan ayaa sheegtay muddo 3 maalmood ah in ay dhakhaatiirtani ku xidhnaayeen magaalada Muqdisho kadib dib loogu soo celiyay magaalada Hargeysa, iyadoo arrintaasi ku tilmaantay aqoon darro dhinaca sharciga ah oo Soomaaliya ka jirta sida ay hadalkeeda ku sheegtay. Dr. Adna Aadan ayaa hadalkeeda intaasi sii raacisay. sharciga adduunka u dejisanay waxa weeyaan dadka dhoofaya ee transitka ah ee madaar ku sii hakanaya ka sokeeya meesha ay ku socdaan lama dibindaabiyeeyo. baasboorto lagama qaado, lagama jeexjeexo, dhib kalena looma geysto. meesha ay ku socdaan ayaa haddii ay aqoonsan yihiin dalku galka iyo fiisaha ay sitaan
ama u oggolaata ama ka joojisa inta meelood ay ku sii hakanayaan shuqulkuma laha waa xeer adduunka u dejisan haddii Soomaaliya garanayso sharciga dad transit ah baasaboorka kamay qaadeen kamay jeexjeexdeen 3 maalmood may qafaalasho kumay haysateen IATA International Association of Travel Authorities sharcigeeda weeyaan sidoo kale Dr. Adna Aadan ayaa sheegtay in dhakhaatiirta ay nabad qabaan isla markaana ay dhawaan heli doonaan baasaboorradii laga jeexjeexay iyo tababarkii caafimaad ee dawladda Soomaaliya ay dhaafisay wixii laga jeexjeexay baritaan loo jadiidinayaa fiisihii laga jeexjeexay waa loo helayaa tababarkii loogu tala jiray way helayaan tababarkaas oo ay wax ugu qaban lahaayeen dadka degan Soomaaliya Somaliland Ethiopia maxaan ku raad deegaanka Soomaalida Djibouti iyo meeshii kale ka yimaadaanba waxay dawladda Soomaaliya ku dhaliishay in dhakhaatiirta ay sidan u gashay dadka ay Hargeysa ku daweeyaan ay u badan yihiin kuwa Muqdisho ka soo doonta daryeel caafimaad dadka ay daweeyaan waxa ugu badan dadka Soomaaliya ka yimid dadka madaarkan lagu soo dhaweeyo waxa ugu badan dadka madaarada Soomaaliya ka yimid maalin walba Garowe bay ka yimaadaan oo Boosaaso ka yimaadaan oo Xamar bay ka yimaadaan oo iminka diyaaradan ay ka soo degeen madax ka mid ah madaxdiinii kood madaxda ku sheegateen baa saaran lamaanaanu soo degin baasaboorna kamaanaanu jeexjeexin dibin daabiyana looma geysan waayo magan bay noo yihiin transit bay nagu joogaan wayna sii dhaafayaan sidaasi Dr. Adna Aadan waxay ku tiri shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Hargeysa